markii la ogolaaday furitaanka xoolaha ee la sugay caafimaadkooda dariiqa maxjarada lagu sugay iyo wasaaradda caafimaadkooda ay ku sugeen xoolaha caafimaadkooda waxaanu gaadhnay inaan la tartanno dhammaan caalamka ka ganacsada xoolaha iyo hilibka xoolaha حابتو لذا هدي أهل حالي عقوال بعدو يدا لو ديردو xoolaha Soomaaliya waa laf dhabarta dhaqaalaha dalka waxaana noloshoodu ay ku tiirsan tahay in ka badan 70% shacabka Soomaaliyeed sidoo kale waxa ay ka qayb qaataan kororka wax soo saarka dhaqaalaha gudaha dalka 65% isla markaasna waxa ka soo hoyota dhoofka xoolaha in ka badan 80% lacagta adag ee soo gasha dalkeena waxa ii muuqda rajo wanaagsan waxa ii muuqda Soomaaliya ee noqon doonto wadan horumarkeedu ka horeeyo wadamo badan waxa ii muuqda wadan dhaqaalihiisu uu la tartami doono wadamadii aanan burburin waxa ii muuqda wadan ka faa'iideysan doona kheyraadkiisa dabiiciga ah haday tahay beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga iyo macdanta kale oo adduunka kale aan u suuq geyn doono wadamada khaliijka ayaa kamid ah meelaha ugu badan ee loo iibgeyn jiray xoolaheena balse nasiib darro horaantii sanadkii 2007 ayay ahayd markii ay ku dhawaaqeen inay iska joojiyeen qaadashada xoolaha Soomaaliya diidmada wadamada khaliijka waxa sabab u ahaa warbixino aan jirin oo ay gudbiyeen dad cadow ku ah inuu horumaro ganacsiga iyo dhaqaalaha Soomaaliya joojinta dhoofka xoolaha dalka waxa ay saameyn ku yeelatay nolosha shacabka Soomaaliyeed cidda kaliya ee wax ka qaban kartayna waxay ahayd dawlad Soomaaliyeed laakiin dhammaan dawladihii dalka soo maray kuma guuleysan inay xal u helaan xayiraadda lagu soo rogay xoolaheena iyadoo ay ka soo wareegtay 11 sano ku dhawaad markii xayiraadda la saaray xoolaheena waxa sanadkii 2017 xilka madaxweynaha Soomaaliya loo doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddadii uu xilka hayay booqashooyin isxigxiga ku tagay wadamada khaliijka gaar ahaan dalka Sacuudiga si xal loogu helo arrimo badan oo ay ka mid tahay in meesha laga saaro xayiraadda lagu hayo xoolihii Soomaaliyeed ee loo dhoofin jiray wadamada khaliijka waxaan kala hadalnay cunaqabateenka xoolaheena saaran oo adiga ilaa muddo aan la dhoofin waxaan ka wada hadalnay inaan dawladdan ay u baahan tahay shacabka Soomaaliyeed ee dib u dhiska dalka in gacan laga siiyo dadaalkii madaxweynaha ayaa guuleystay nasiib wanaag qoraal rasmi ah oo ka soo baxay boqortooyada Sacuudiga ayaa lagu cadeeyay in dib loo furay iibsashada xoolaha Soomaaliya kadib markii uu dhaqan galay heshiis iyo isfaham arrinkaas la xiriira oo dhex maray madaxweynaha Soomaaliya iyo boqorka Sacuudiga markii ay dawladda Sacuudiga ku dhawaaqday in xoolaha Soomaaliya loo soo dhoofi karo dalkeeda ayaa wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliya waxay fariin u dirtay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed wasaaradda ayaa u soo jeedisay shacabka Soomaaliyeed xoolo dhaqatada ganacsatada iyo cidii ku hawlan arrimaha dhoofka xoolaha Soomaaliya in lagu guuleystay xayiraadii dhoofka xoolaha Soomaaliya ee dalka Saudi Arabia in la qaado mowsinka xajkan sanadkan 2019 iyadoo wasaaraddeena iyo wasaaradda beeraha ee dalka Sacuudiguna ay ka shaqeynayaan sidii guud ahaan loo qaadi lahaa xayiraadda dhoofka xoolaha Soomaaliya iyadoo hawshaasi ay meel gabagaba ah marayso iyadoo ay wasaaraddu qayb ka tahay tubta dhaqaalaha ee xukuumaddu waxay u howlgashay fulinta halbeegyada saldhig u ah tubta dhaqaalaha ee ku aadan horumarinta xoolaha Soomaaliyeed iyo ka qaadida xayiraadda saaran dhoofka xoolaha ee loo dhoofiyo dalka boqortooyada Sacuudiga ee aan walaalanahay isla markaana loo helo suuqyo cusub oo loo iibgeeyo xoolaheena nool iyo waxa ka soo baxaba wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa ka codsatay shacabka in laga wada shaqeeyo horumarinta caafimaadka xoolaha iyo fulinta halbeegyada dawladda ee la xiriira dhoofka xoolaha Soomaaliya iyadoo danta gaarka ahna aan ka horumarinayno danta guud ee ummadda Soomaaliyeed oo ay noloshoodu ku xiran tahay xoolaha حابتو لذا هدي أهل حالي عقوال بعدو يدا لو ديردو